maxaa dhacay haddii DKM ay la wareegto xukunka Soomaaliya hata waxay ku jirtaa marxalad ay shacabka doonayaan in dib loogu celiyo awoodda oo ay ayaga doortaan qofka ay rabaan waxayna aad ugu daaleen inay u hoggaansamaan oday kasta oo iska dhigaya inuu ka fakarayo danaha dalka iyo shacabka isagoo danihiisa iyo sida uu hanti u tacban lahaa kaliya u tartamayo haddaba xukunka haddii dhalinyarada loo dhiibo maxaa dhacayo ugu horreyn 6 bilood ee ugu horeysa Soomaaliya waxay noqonaysaa dawlad indhaha lagu wadaha kadib markii ay bilowday inay shaqo siiso qof kasta oo dhalinyaro ah isla bilooyinkaas gudahooda waxaa dalka laga saarayaa nafarada shisheeyaha ah iyo qof kasta oo nabadda Soomaaliyeed ka soo horjeeda bilooyinka xigana waxaa bilaabanaya nabadeynta Soomaaliya kadib markii xubnaha dawladda dhan ay wada noqdeen dhalinyaro waxayna ka shaqeynayaan inay ka hortagaan kuwa nabadda carqaladeenayo 6 bilood ee xigtana waxaa bilaabanaysa in awoodda loo celiyo ciidamada Soomaaliyeed oo wada dhalinyaro ah iyadoo aan la arkayn askari shisheeye oo dalka jooga bilooyinka ku xigana waxaa si toos ah loo soo xirayaa xuduudaha dalka 6 bilood ee kalena waxaa bilaabanaysa horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya iyadoo beeraleyda xoolo dhaqatada iyo qof kasta oo ganacsada Soomaaliyeed ah lagu dhiirigelinayo inuu ganacsigiisa horumariyo bilooyinkaas gudaheedna dhaqaalaha Soomaaliya soo galay wax uu kor u dhaafayaa ku dhawaad 3 ilaa 4 bilyan haddii uusan ka badnayn 6 bilood ee xigtana waxaa si toos ah loo bilaabayaa soo saaridda shidaalka iyo qodista macdanta dalka taasoo aad u sii horumarinaysa dhaqaalaha dalka bilicdiisa iyo horumarka uu sameeyo dawladana waxay ka shaqeynaysaa sidii shacabka Soomaaliyeed xaqooda ay u siin lahaayeen ayadoo xitaa la arkay heer dadka guryahooda ay iska jiifaan sababtoo ah bil walba dawladda ayaa lacag meel u saartay Soomaaliya waxay ka mid noqonaysaa dawladaha ugu wax soo saarka badan dunida iyadoo noqonaysa dawladda ugu horeysa ee Afrika ku taala misna lagu tashto 2 sano gudahood oo kaliya ay Soomaaliya kaga mid noqonaysaa dawladaha ugu horumarsan caalamka laakiin taas waxay dhacaysaa in xukunka lagu wareejiyo wiil dhalinyaro Soomaali ah kaas oo ay ka go'an tahay in uu dalkiisa horumariyo shacabkana ay fahmaan cid dalkan xalkiisa haysa ay dhageystaan baaqa ay DKM u dirayso